guys kelmadda u dheer luqadda Englishka weliga allaha ma isweydiisay waa luqadda Englishka waan maqalnaa maalin walba waxaan oo beertay kelmad ayaan faa'iidnaa laakiin kelmadda u dheer luqadda Englishka waa maxay la socod videoga ku sheegay Ingo yalla dhashay ma dhilba saddex urugele ma dhilba daymanka ku socdo ma dhilba dhashay badal ilaahi wali ma kelmaddaas waxa weeyaan pneumonoultra microscopic silicon volcanoconiosis waa qaldateen ku soo celiyo mar kale pneumonoultra microscopic silicon volcanoconiosis like don't worry you know what kelmadda wax ka baxaysa videoga inoo akhrin karaya iminka san u fahamna kelmadda waa kelmad adag boonan karaya dadka speaking-kooga spelling-kooguna uu heer sare hayn ma waxaan karayaan laakiin maad si yaro easy ayaan ku soo qaadin waxaan sameynaa we're gonna break it down waxa ka dhigan tahay waan kala saarnaa syllables let's go ayas haata let's break it down syllable ka hore wuxuu noqonayaa pneumono baa loo akhriyaa saad u arkaysiin p-da waa saanada p-da akhrinaad ereyada jahilnimada p-da akhrin pneumono talabaad waxa weyn ultra amba ultra soo akhriyaa aan waxa akhriyaa ultra tii hore maxaa pneumono talabaad pneumono ultra tasaddexaad waxa weyn microscopic ka afraad silico akhribad eeg isku geegeeyo silico tashanaadna waxa weeyaan coniosis hayay markaas ku geegeeno ta horse talabaad pneumono ultra microscopic silico coniosis yalla hay marka waa adiga way markaa yalla dheeb aan maqlaya isku day okay I hear you pneumono ultra microscopic silicon coniosis okay ha ka cabsan bis taqfla telefoon baada ha ka cabsan waad keeni doontaa marka kale maxaa la more practice makes perfect waa tagaad halqadeeni hadda ni faa'iido wax doonayna subscribe qacda ka siisiin iyo belkan dhacga sidaan markastaba todobaadkii waxa soo dhigaya insha Allah 2 times ayaan isku dayay inaan soo dhigo 2 times soo dhigi doona insha Allah la socda video ashidana asxaabta thank you so much